بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan ku jirnay kitaabkii saabiqaat, waxaan soo gaarnay baabkii ahaa shubuhaat xawla tashriic al-islaami oo sheekhu laba qaybood u qaybiyay. qaybtii labaad baynu ku guda jirnay oo ku saabsanay shubuhaat looga daleeyahay in lagu shaki geliyo thawaabida iyo udubada ay shariicada islaamka ku taagan tahay, udubada iyo tiirarka ay shariicada islaamka ku taagan tahay. waxaan hore soo qaadanay makaanada sunnada shubuhaat lagu furay oo muxuu ahaay la rabo in laga saaro sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam kamid ahayd thawaabida shariicada ama shariicadu waxay ku taagan tahay kamid ahayd in laga saaro ama laga bixiyo shariicada islaamka ama aan masdar masaadirta shariicada kamid aan laga dhigan. imikana waxaynu insha Allah taala sheekhu galaya baabkii labaad kamid ah thawaabida shariicada waxyaalaha laga shaki galiyay oo ah ijmaaca oo ah ummadda muslimka ah mujtahidiinta iyo culimada aqoonta dheeraadka u leh shariicada islaamka oo shuruud loo dhigo in ay naazila ama xaaditha soo dariday ama mas'ala muayana ay siiyaan xukun iyagoo ka qiyaas qaadanaya ama ka soo marka waxa weey kala soo baxaya adiladeeda shariicada islaamka iyagoo kaashanaya aqoonta aalada ay u leeyihiin istinbaadka ahkaamta shariicada. waana qadiyad macruuf oo ay kutub usul ijmaaca wata lagu sharaxo iyo maxaa ahaay suurada uu yeelanayo ijmaaca la xujeysanayo iyo makaanadiisuba. laakiin ruuxa inkiraya xujanimada ijmaacu inuu xujo yahay diidan waxa uu ku xukumaya dhammaan ummadda muslimka ah ee qadiyada noocaas ku ijmaacday inay baadi ku sugan yihiin. taasina waxay khilaafsan tahay wuxuu Rabbi subhanahu wa ta'ala inoo waramay la tilmaamay ummadda inay tahay ummadaha ugu khayrka badnayd kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. waxa kale oo marka waxa weeye u baahan in la baraarujiyo ijmaaca la xujeysanayo shariicadu ay sugtay thawaabida shariicada kamid ah ahkaamteeda de waxa loogu laabanayaa oo lagu istinaadaya oo lagu tiirsanaya oo ijmaacu ku tiirsan yahay adiladii quraanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. ijmaacaadka ahlul cilmiga laga soo naqliyana dhamaantood waqaar u laabanaya asalkoodu u laabanaya labada waxyi imma tasriixan aw talmiixan, yani sicadna waa u daliishan karaan qowluhu ta'ala ba u daliilay waxa lagu ijmaacay sida ay sida ama xadiiskii nabiga sida ay sida ahaa ama way talmiixin karaan qawaacida shariicada guud ay marka waxa iyagoo ka qiyaas qaadanaya ama ka duulaya ay mas'aladii xukun siinaya. ummadda muslimka inta ijmaacaysa culimadeeda ah mujtahidiinta ahina waxay ka midaysan yihiin ay wadaagaan adawaadka istinbaadka ee xukunka lagu soo baxayo kitaabka laga soo baxayo sida culumtii muxuu ahaa culumul aala la yiraahdo culumtaas oo ah culumta qofku ku gaarayo inuu si faham kaamil ah ku yeesho naskii ama xadiiskii aayadii inuu faham fiican ku yeesho. marka quraanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ka ah usuusha lagu fahmayo ama aalada lagu fahmayo in luqadii ay ku soo dageen in marka waxa weeye uu saliim yahay oo qofku garanayo luqadii quraanka iyo sunnada nabiga ay ku soo dageen. ijmaacana saxaabada nabiga radhiyallahu calayhim iyo taabiciintii iyo salafkii ummadan quraanka u xujeysanayeen suuragal miya in saxaabada nabiga iyo taabiciintii iyo mujtahidiintii ummadda iyo 1400 sanadood يعني مسألة مقرر كاهيد الإسلام وافقسنا إلى دليشانية الحجيسانية دينتو كقمتي إدماطي انتو قف إيمادا إنه يلاحظوا إجماع حجمها قرآن كوسيقوا فهمينا صحابة نبيغا يتابعينتي يسلف كما أني فهمين مياه من كقرصوني مسمرك وحوي واني قاعدين وأقونتو دا أيان قاعدين قد يدر نوع عسوا قد يدقوا تسينيسا كدوديستا لقود دودا إجماع وين الحجاء هين أما مسائل كعلمي أين عنوض كو إجماعان أن الحجيسين كرين أما لدليشين كرين أما أنا جيت وأقرين إن تهي قضية سطحية وأن أصول علمية كل سنين أصول علمية عن كل سنين مسائشة يعني قابك لو انكروا اجماعنا وكلا دوونتها اما انه قفك سوف يستوي يلاحظه شيء اجماع يلاحظه ولا حجيسه كلا ما جرو يا اما انه يلاحظه مسائل كقار او لو اجماع انه انكره ولا مسائل نوعاسا muxuu ahaa diinta saliya raadka male iyadoo mas'aladuna ijmaac ku sugan tahay oo culimada muslimiintu ay isla qaateen oo ummaddu isku waafaqsan tahay. qadiyadaha la inkaro badan waxa kamid ah ummadda ku ijmaacday waa gaari doona baab al-xuduud مسألة إن الدين مرتد كوكله ومجمع عليه علماء وكو إجماعين ونسلو قليهين هذا قارك رحمة الله شان أركي سايو كهذا لي مسألة أما دوت كينية وكفرية تاسر أيه وكدو لي إجماع لو دريش هذه مسألة أي مركب حويدي دينهين أما يكسر جيدان وحري دريشنا يقوله تعالى لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين إيوه قولك إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى
ورضي عنه أها من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. قضية نوعاas waxaan leenahay waa intiqaa'iya غير موضوعية يعني وحلشو أدلة لك الحلانيو يدو أن ليسوا ديلي ترانين يعني أدلة قرآنك مركب حوي يدو قارن القاضي قارن لقتجيو ربنا سبحانه وتعالى أهل الكتاب كيتايد كل لعي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء إلى آخر الآية. قضية نوع سيئة إن آيات كقار لقاته حديث تغار لقاته أدلة ذوي قولك يدي قاتان وقضية معروف به أهل البدع والضلال وحال هذا انتقائية. لكن أهل السنة والجماعة شيء موضوعية لهذا أدلة كوسو أرتي هاي مسألة سي واضحة يسي هاي عط أي مركب حوي أسوة وروريان وحي كلنا يا استطراد هنا مر دب كإيمانية دب أيو كإيمانية مثلا باب هي دليشنا لا إكراه في الدين أي إجماع مركب حوي أيام هاي مرتد كأن لو دلينين لا إكراه في الدين. يا رب سبحانه وتعالى وكل من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم يعني إلهي سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين هل كان إساء كل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت. مركا رديدا لغا نقول دينتا النبي عليه الصلاة والسلام وكله من بدل دينه فاقتلوه ومدر وكوج مع سته إلا دل روحك كالردوبة يدو طبعا أحكامتي فقه قالوا يقاني هدرتوا إلى سويسر دينين سكول رينين معروف كأ يدو لمريو مريو. أما قول كإمام أحمد بن حنبل من ادعى الإجماع فهو كاذب قضية نوعاas إمامكو توجيه كوبادة إنه سيكر نقول كاس وحاول يحكيها اللي يبقى يعني معتزلة أيها هذا الحكم كياني معتزلة أيها هذا الحكم كياني أو إجماع مركب وحاول يحجي ست مسائل أي لهذان الأركان الخمس ويقانان قول سلاس كوي قول كيسر أحمد ادعى الإجماع فهو كاذب يعني إجماع حجيستين معتزلة أيها رديله يا شيخو مرقاسولي من ادعى الإجماع فهو كاذب. توجيه لبعضنا ولا سين كره واحد عنكره شيخو من ادعى الإجماع فهو كاذب مركو ليه هي يعني وحكوا إن لقى حران ميرته قضية شيء إجماع دعوة الإجماع وأيوة أرنا أدعو لسوي marka adeedahay umada muslimka ah ama culimada isku waafaqday qadiyada noocaas توجيهها labaad baa xog badano nabi Ahmed Hanbal imaamka imaam ahli sunnah wal jamaa waxa caan ah inuu oran jiray marka uu doonayo ijmaac soo naqliyo la a'lamu fihi khilafan wa khilafak ma ogi لا أعلم فيه خلافا هل قلنا أجمع العلماء على كذا وكذا وحليه لا أعلم فيه خلافا قد إذا نوع سنحوس صمين إياه واقع يعني واقع هانت قفكم مؤجة علماء المسلم كأول أنتوا ودي سامك قبتها يعني وكحلال ميرانية إنه إجماع شيكته وكحلال ميرانية قد إذا نوع سوانا لو توجيهين كرا قول كإمام أحمد رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع فهو كاذب فهو كاذب مركا عبارة هي من ادعى الإجماع فهو كاذب. إمام أحمد بن حنبل أوليه هي يقوله تعالى لا إكراه في الدين وحده لله يقوم السجنانين إن لقب الشيوخ إجماع لقب الشيوخ نسي عقلية بهذين هاي كمان ما إنه أدلة ده إنه دليشين قرآن كي السنة وحلينا هاي كاجن ديدن عقوبة الردة يعني حد كردة كاجن مرة ككينية إلى حد ردة هي متشرو دليشنا لا إكراه في الدين سؤال بالكويدين سؤال الكويدين waxay tahay nabiga عليه الصلاة والسلام saxaabadiisii iyo ardaydiisii ah iyo ardaydii saxaabada taabiciinta ah iyo ummadda salafkeedii ma wax aanay gaarin cilmi aanay gaarin baadiga lagu bixiyay ma aayadan la ikraha fi الدين waxaan iyagu ka fahmi kari waayeen bad adigu ka fahantay hadu markaa qofku yiraahdo nacam ha waxaan saxaabadii ka fahmin oo taabiciintii ka fahmin oo aymadii muslimiintu ka fahmin bal muslimiintu dhan ay ka fahmin baan anigu aayad ka fahmay la ikraha fi الدين waxay tilmaamaysaa qofka ridooba hadii حلنا هيدا وما بعدين كانت إجماع يعني ومدى مسلم كيس وافقده ما بعد ذكرت ما حنا نقول يسقف هاي تشرب بنقوليس هدو يلاحظوا كما فهم بدنا لك وكقر صنتينا ده وحي صحابة رجع قرية أديك أنا نقول بحنين خبروا لي بوا وقتها أسعيتين المركا قد يدا لا إكراه في الدين بالود اللي شنو عقوبة الردة ما شرته وقضية ساذجة قضية سطحية بشوفوا كعبري توجيهها لبدا توجيه نوسي عبارة من ادعى الإجماع فهو كاذب عموما إجماع حكم له مسدد الشريعة الإسلام وافقي ولو خلاف بها كتشرو يعني إجماع عيبة لحجي سنية دي قضية دا سنة وقضية محوها كتب الأصول لقوا علاجيوي موضوع عن موضوع عيدي ماها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.